falimaha rasuullada cutubka saddexaad haddaba saacaddii sagaalaad oo wakhtigii salaada ayaa butros iyo yooxana macbudka tageen waxaa la soo qaaday nin curyaannimo uurkii hooyadiis kala soo baxay oo maalin walba laag dhigi jiray albaabka macbudka oo la odhan jiray qurux badane inuu kuwa macbudka gelayay dawarsado isagu markuu arkay butros iyo yooxana oo ku dhow inay macbudka galaan ayuu dawarsaday iyaga markaasaa butros oo yooxana la socdo intuu aad u fiiriyey isaga ku yidhi na soo eg markaasuu u fiirsaday iyaga isagoo filanaya inuu iyaga wax ka helo laakiin butros baa ku yidhi lacag iyo dahab midna ma haysto laakiin waxaan haystaan ku siinaya magaca ciise masiix kii reer nasaareed ku soco markaasuu intuu gacanta midigta ku dhigay ayuu sare kiciyey oo markiiba cagihiisii iyo canqowyadiisiiba waa xoogaysteen intuu kor u booday ayuu istaagay oo socod bilaabay markaasuu iyaga macbudkii la galay isagoo socda oo boodboodaya oo ilaah ammaanaya dadkii oo dhammuna waxay arkeen isagoo socda oo ilaah ammaanaya markaasay waxay garteen inuu isagu yahay kii albaabkii quruxda badnaagtiisa dawarsiga u fadhiisan jiray markaasay yaab iyo amakaag ula dhinteen wixii ku dhacay isaga oo intuu butros iyo yooxana ku dhegganaa ayay dadkii oo dhammu ku soo wada ordeen balbaladii la odhan jiray balbaladii sulaymaan iyagoo aad u yaabsan markuu butros dadkii arkay ayuu u jawaabay oo ku yidhi nimanyow reer binu israa'iil maxaad waxaan ula yaabantihiin ama maxaad sidaas noogu fiirinaysaan sidii annagoo xooggayaga ama cibaadayada ku socodsiinay isaga ilaah ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo ahaa ilaah owayaasheen wuxuu ammaanay midiidinkiisii ciise kii aad gacan geliseen oo aad bilaatos hortiisa ku diiddeen markuu goostay inuu sii daayo laakiin idinku waxaad diiddeen kan quduuska iyo xaqa oo waxaad weyddiisateen nin dhiig qabaa in laydii sii daayo oo waxaad disheen amiirkii nolosha kan ilaah ka sare kiciyey kuwii dhintay annaguna markhaatiyayaal baannu ka nahay magaciisa ayaa xoog siiyey kan aad arkaysaan oo garanaysaan rumaysadka uu magaciisa ku rumaystay aawadiis rumaysadka uu ku rumaystay isaga ayaa ninkan idinka oo dhan hortiinna ku siiyey caafimaadkan waxaanan ogahay walaalayaalow inaad tan aqoon la'aan u samayseen sidii madaxdiinnuba yeeshay oo kale laakiin ilaa sidaasuu u dhammeeyey waxyaalihii hore uga sheegay afafkii nebiyada oo dhan oo ahaa in masiixu silci doono haddaba toobadkeena oo soo noqdaa si dembiyadiinna loo tirtiro si ay wakhtiyo qabowjiis lihi uga yimaadaan rabbiga hortiisa oo uu soo diro ciise masiix kii uu hore idinku doontay kan ay waajibka tahay in samadu aqbasho tan iyo wakhtiyada la soo celinayo wax walba oo ilaah kaga hadlay afkii nebiyadii quduuska ahaa tan iyo bilowgii muuse wuxuu yidhi rabbiga ilaah wuxuu walaalihiinna dhexdooda idinka kicin doonaa nebi anoo kalea waa inaad isaga ka dhegaysataan wax kastuu idinku yidhaahdo waxay noqon doontaa in naf kastoo aan nebigaas dhegaysan dadka laga dhex saari doono oo la baabi'in doono nebiyadii oo dhan tan iyo samu'eel iyo kuwii ka dambeeyey in alla intii hadashay waxay wada sheegeen maalmahan waxaad tihiin wiilashii nebiyada iyo wiilashii axdigii ilaa la dhigtay awowayaashiin markuu ibraahim ku yidhi qabiilooyinka dunida oo dhammu farcankaagay ku barakoobi doonaan ilaa markuu midiidinkiisii kiciyey idinku markii hore idiin soo diray inuu idin barakeeyo markuu midkiin kasta dembiyadiisa ka soo jeediyo